Assalaamu calaykum. Soo dhowaada mar kale. Waa anigoo ah Cabdifataax Aadan iyo muuqaal cusub. Muuqaalkan maanta waxaan kula wadaagi doonaa 4 hab ama 4 nooc oo aad online-ka ama internet-ka aad lacag uga samayn kartaan. Waxaa badanaa isweydiinaysay ama aad isweydiisaa sideen internet-ka lacag uga samayn karaa. Waxaana macquul ah in aad marar badan aad ku baartay internet-ka aad ku baartay isla su'aashan ah sideen internet-ka lacag uga sameeyaa. Hadduu alla idmo maanta waxaan kula wadaagi doonaa 4 hab ama 4 nooc oo dadka internet-ka lacag uga sameeyaan aadna adiga laftirkaada uga samayn kartid. Aan horey u gulno 4 qodob. Intaanan horey u gulin fadlan hubi inaad kanaalka subscribe saartay, sidoo kalena guji danowga ag yaallo si aysan kuu dhaafin muuqaaladeena xiga. Habka koowaad waa YouTube-ka. In aad wax ku soo gudbisid YouTube-ka aadna dad ku soo gudbisid muuqaalo ay ku madadaashadaan ama ay wax ka faa'iidaan. Waa mid ka mid ah hababka ugu caansan ee aad internet-ka lacag uga samayn kartid. Laakiin waxaa ogaataa YouTube-ka ma aha meel hadda maanta aad soo geshid 5 maalin ama usbuuc kadib aad lacag ama faa'iido aad ka helaysid. Haddaba haddaad doonaysid inaad YouTube-ka wax ku soo gudbisid, meel ku qor hadalkan. YouTube-ka bilowga aad ayuu adag yahay, aad ayuuna u xanuun badan yahay. Markaad YouTube-ka bilowdid, waxaa ku soo mari doonaan bilooyin dhan oo aad dadaalaysid, muuqaal samaynaysid, aad soo gelinaysid, lagana yaabo in muuqaalkaaga aad diyaarisay oo diyaarintiisa kaaga baxday 5 saacadood oo waqtigaada ka mid ah iyo dhowr maalin oo 5taas saacadood aad ku bixinaysay. Haddana muuqaalkaada aysan daawanin 5 qof kaliya, xitaa 5 qof aysan daawin. Haddii aad ku jirtid dadka aad u dulqaadka yar aanan wax wadi karin, ma kugula talinayo qodobkan koowaad ee YouTube-ka ah. Sidoo kale YouTube-ka waxaa la mid ah baraha bulshada ee kale sida Facebook iyo TikTok oo maalmihii dambe booska isku soo xiriirinaysa. Aan u gudubno qodobka labaad, freelancing. Nooca labaad ee internet-ka lacag looga samayn karo waa waxa la yiraahdo freelancing. Freelancing waa inaad qof aad shaqo u qabatid, kadibna aad kharash ama lacag aad kaga qaadatid shaqada aad u qabatay, adigoo weliba gurigaada jooga. Waxaa jira website caan ah oo looga shaqaysan kara freelancing-ka. Waxaana ugu caansan website-yadan sida Upwork, Freelancer iyo Fiverr. Inta aad website-yadan gelin, waa in aad leedahay xirfad aad ku shaqaysan kartid. Sida tusaale inaad xirfad u leedahay sida muuqaalada loo sameeyo, la iskugu dawirido, video editing-ka, ama aad leedahay xirfadda graphic design-ka. Dabcan xirfadaha aad website-yadan aad kaga shaqaysan kartid intaa way ka badan yihiin. Waxaad uga shaqaysan kartaa web design, mobile application development, translating ama luqadaha in la isku turjumo, si tusaale ahaan in la isku turjumo 2 luqadood oo kala ah Carabi ama English iyo Carabi. Meeshan waxaa kaga shaqaysan kartaa xirfad kasta oo taqaantid. Haddii aad wax badan inaad ka ogaatid aad doonaysid, waxaan kugula talinayaa isla YouTube-ka ku baar. Waxaad heli doontaa muuqaalo badan oo aad ka heli doontid akhbaar badan oo ku saabsan isla freelancing-ka iyo wuxuu yahay iyo sida ama hababka looga shaqaysan karo. Aan u gudbo qodobka saddexaad. Qodobka saddexaad, affiliate marketing. Affiliate marketing-ka waa hab online ah oo internet-ka lacag uga samayn kartid. Habkan waa in tusaale Amazon oo kale aad ka samaysatid account, kadibna waxaad samaynaysaa alaab ayaad soo qaadaysaa link affiliate-keeda, kadibna dadka ayaad linkigaas u diraysaa. Haddii uu qof linkigaas inta uu ku dhufto oo alaabtaas uu gato, adigana lacagtaas laga qaaday waxaa ku yeelanaysaa percentage. Noocan ama habkan wuxuu badanaa anfacayaa dadka leh audience ama dad ku xiran sida dadka caanka ah oo kale. Laakiin haddii aad tahay qof aan caan ahayn ama aan la garanaynin, dabcan sibay kugu adkaanaysaa. Laakiin haddana waxaa jira dad aan caan ahayn oonan la aqoonin kana sameeyaan lacaga fara badan noocan hadda sheegayno. Qodobka afraad waxaa la yiraahdaa digital marketing. Qodobkan sidoo kale waa mid ka mid ah noocyada aan internet-ka lacag uga samayn karno.
Digital marketing-ka waa xirfad la barto. Haddii aad xirfadaas leedahay, sidoo kale waa hab fiican oo lacag fiican aad uga samayn kartid internetka adigoo weli gurigaada jooga. Habkan waxaad suuqgeyn u samaynaysaa alaab ama product ama xitaa shirkad. Kadibna adiga waxaad lacag ku qaadanaysaa suuqgeyntaas ama xayeysiintaas aad samaysay. Waxaan doonayaa in intaas ku soo afmeero muuqaalkan. Waan kaga hadlaynay sida internetka lacag looga samayn karo adigoo gurigaada jooga. Haddii aad muuqaalkan waxuun ka faa'iiday, fadlan subscribe dheh kanaalka, muuqaalka like saar, siina share garee. Ugu yaraan hal qof oo asxaabtaada ka mid ah gaarsii muuqaalka. Waa ku mahadsantahay daawashadaada. Mac salaam.